saddexdaasaa maantay loogu qaybsamay madrasadan aan galnay madrasatu libtilaa nabigeenana sala allahu wasalam wabaaraka calayhi qofka muuminka ah markii xaaladdan oo kale la marayo waxyaalaha uu ku tilmaamay sifaadka muuminka waxaa ka mida nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayhi xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayey nabigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu ku yidhi cajaban liamri اlmu'min ina amrahu kulahu khayr walaysa daaka ila lilmu'min in asaabathu saraa shakara fakaana khayra lah wain asaabathu daraa sabr fakaana khayra lah nabiga sala allahu wasalam wabaaraka caleyh madrasat alibtilaa haddii la galo oo madrasada musiibooyinka iyo imtixaanka iyo jahwareerkan oo kale haddii la galo muuminka mowqifkiisuu ka hadlay rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi cajaban liamri اlmu'min arrinka muuminkaan la yaabuu yidhi arrinka muuminka ayaan la yaabuu yidhi ina amrahu kulahu khayr muuminka shu-uuntiisoo dhan khayr iyo barakay bay isaga dhisan yihiin iyo qalbi furaasho iyo welwel la'aan iyo kurba la'aan ayaa muuminka sha'nigiisu ku dhisan yahay yuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam marka qofku hadduu iimaankiisu qawi yahay oo iimaanka uu tilmaamayo nabigu sala allahu alayh wasalam iimaankiisu uu yahay ildiraab ma jirayo qalaq nafsiya ma dareemayo marxaladdan oo kale markii la galo qalaq nafsi ah iyo ildiraab iyo murugo iyo kurbo oo markaa maaragtaahay gaarsiisa inuu xaalad qalbigiisii iyo maskaxdiisii uu walaaco ma gaarsiin karto hadduu muumin saxa yahay qofku muumin toosan hadduu yahay nabigu sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi walaysa daaka ilaa lilmu'min argagax la'aantaas iyo mushkilo la'aantaasna muuminka uunbaa iska lahou yidhi rasuulku sala allahu calayh wasalam in asaabathu saraa shakara fakaana khayran lah haddii wuxuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam muuminka ay soo wajahdo arrin ka farxisa ee caafimaad iyo barwaaqo iyo khayr iyo farxadi ay soo wajahdo markaas waa iska shukrinaa alxamdu lilah ayuu leeyahay oo khayrkii xagga ilaahay uga yimid ayuu uga shukrin fakaana khayran lah shukrigaasina khayr iyo barako iyo dallacsiin ayuu ku helayu rasuulku sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wain asaabathu daraa sabr fakaana khayran lah haddii dhibaato iyo cudurro iyo abaaro iyo mashaakil ay soo wajahaanna waa sabrayaahu yidhi wuxuu og yahay in ilaahay hore ugu qoray uuna ka helayo nafaxaad oo dhibka haye cudurkan dhibka uu ku qabanayo waxbaa ku hoos duugan oo waxaa weeye taxta almixna alminxa ayay culimadu yidhaha taxta almixna mixnada musiibada hoosteeda alminxa ku hoos jirta caddiyo wax siin haddaad muumin maaragtaahay iimaankaagu dhab yahay taxta almixnati alminxa mixanta iyo shadaa'idda iyo dhibaatooyinka khayraa ku hoos duugan wax badanaa kugu hoos duugan haddaad muumin saxa tahayow saa waa inaad ku noolaatid nabiga marka sala allahu wasalam wabaaraka caleyh wuxuu yidhi haddii xaaladdaa darradu asiibto sabra fakaana khayran lah sabaruu la qaabilahayaa marka sabarkaasaa wuxuu u noqon uu rasuulku sala allahu alayh wasalam ajir iyo khayr iyo barakaad ayuu sabarka wakeli fahuwa fii kila alxaalayn fii khayr marka labada xaaladoodba marxaalatu daraa iyo xaalatu saraa muuminka qalbigiisu waa u degan yahay xaalatu saraa iyo xaalatu daraa muuminka qalbigu waa u degan yahay mar walbaba waa aan wax ka baranno taariikhihii la soo maray dad galay madrasatulibtilaa annagu uguma harayno madrasatulibtilaa iyo madrasadan imtixaanaadka iyo shu-uunta ummad gashay uguma horayno sanadkii 18 dowladdii sayd cumar dhibaataa dhacday sanadkii 69kii dowladdii uu hogaaminayay cabdullahi bnu zubayr iyo markay dagaalamayeen nimankii umawiyiinta ahaa cabdilmelik bin marwan iyo dowladdiisa ay iska hor imanayeen 69ka iyadana tanoo kale ka darana dhacday dowladdii cabdullahi bnu zubayr aba dhib badnayd musiibadii muslimiinta soo wajahday leannu isagana daacuunaa dilaacay xilligii dowladdii cabdullahi bnu zubayr daacuunkaas waa daacuunka culimmadu ay ku magacaabeen daacuunuljaarif jaarif waxay ugu magacaabeen daacuunkii xaaqayey bashariyadii oo dhan uu dunidii ka xaaqay waxun bini aadamku wuxuu noqday la xaaqayo oo kale sidii loo daadanayo oo loo dhanayo daacuunuljaarif ay markaa culimmadu ay ugu magac dareen 80 carruuraha ka geeriyootay anas bin maalik keligiis daacuunuljaarif uga dhintay leannu nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi wuxuu ugu duceeyey carruur fara badan iyo dembi dhaaf iyo maalu ugu duceeyey saddexdaa arrimood marka 100 carruuruhu dhalay ka badan
boqol carruura ka badan uu dhalay khaadim rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam anas ibnu maalik daacunuljaarif 69kii taariikha hijriga waxaa uga geeriyooday 80 carruura ayaa uga geeriyootay dad badan oo magac lena waa ku dhinteen oo marka uu ka mid ahaa mucaad ibnu jabal waa ku dhacay cudurkii dadka baabi'inayay mucaad ibnu jabal markuu cudurka uu ku dhacay allaahuma tubaariku fi lqaliil fabaariknii fiih ilaahu waxa yar adaa barakeeye ii barakeeyo yidhi mucaad ibnu jabal sida abulfaraj ibnuljawz uu ku sheegayo kitaabkiisan athabaat cinda almamaati la yidhaha ilaahu ii barakeeyo yacni meeshuu ka nixi lahaa oo dhihi lahaa musiiba ii soo hoyatay oo isla hadli lahaa oo gacmaha taagtaagi lahaa ma jirto ilaahu ii barakey nicmadan maqaadir ilaahu ii barakey markii naftu ay ka baxaysay wuxuu dhahayey yacni naqaskiyaa ku xirmay mucaad ibnu jabal markaasuu wuxuu yidhi ilaahow mar walboo ceegadan la iisii qabto oo neefta laygu ceejiyaba waxaad ogaanay laa asdaadu ilaa xubban fiik mar walbaba jacaylan sii kororsanaahu yidhi markuu naqasku igu dhegaba iimaana iisii kordhaya waxaan uga nafaxaadka ku duugan meeshan iyo ceegadan lay ceejinayo iyo caburka laygu qabanayo iyo waxa ku hoos duugan ayaan ogahay marka madrasatulibtilaa waxa weye qofka muuminka waa inuu iska ilaaliyo qalaqa iyo ibdiraabka waa inuu iska ilaaliyo mowqif kaloo laga qaadanayo waxaa ka mida waxani waa mirihii bini aadamku xumaatada ay samaynayeen mirihii ka dhashay cuduradan corona laleeyahay iyo wixii musiibooyinka la mida waa bini aadamku ficiladii xumaa iyo jaraa'imtii iyo macaasidii uu samaynayey ficiladii u soo dhashay wey carabtuna waxay ku mamaahan waxay yidhaahaan man zaraca shawkan laa yaxsudu cinaban qofku hadduu qodax tallaasho cinab isaguna ma shafto cinab uma soo dhasho qodaxaan tallaalanay qodaxaana noo soo dhalatay qodaxaan noo soo dhalatay ilaahay jala jalaaluhu wuxuu leeyahay awalamaa asaabatkum musiibatun qad asabtum midlayha qultum ana haada qul huwa min cindi anfusikum uu yidhi ilaahay jala jalaaluh dagaalkii uxud markuu dhacayey ayaa muslimiintu dhaawac badan iyo geeri fara badan iyo markay la kulmeen ayay yidhaaheen mu'miniinaan bannahay maxay musiibadan inoogu dhacday awalamaa asaabatkum musiiba qad asabtum midlayha qultum ana haada war xaggee musiibadan sababta ay noogu timid waa sababtay isweydiiya ilaahay waa u jawaabay jala jalaaluh wuxuu yidhi qul huwa min cindi anfusikum naftiinnu idinka mukhaalafo wey nabigay khilaafeen sala allahu wasalam wbaaraka calayh marka mukhaalafadaasi weliba saxaabada dagaalkii uxud ay ku khilaafeen nabiga sala allahu calayh wasalam hal amar uu ahaa laakiin innagu imise amaraan nabiga ku khilaafnay sala allahu wasalam wbaaraka calayh imise nawaahi iyo macaasi oo ilaahay uu naga nahiyey oo aan galnay oo aan dabaalannay innagu marka waxaa weye madrasatulibtilaa waxyaalahan ka faa'iidaysanayn waxaa ka mida waxa nagu dhacay inay yihiin wax annagu gacmaheenna aanu ku shaqaysannay inay yihiin oo caalamkii waxa ka dhacaya waxaa weye waxaa la tashriiciyey oo qaanuunba laga dhigay zinadiyaa shati loo jaray oo gabdhihii maaragtaahi zinaysanayey inta qaanuun ahaan shati loo jaraa waxaa la yidhi waad ganacsan kartiin oo dowladaha gaaladu iyo duwalul ibaaxiya oo dhan canshuur ay ka qaadanayaan ile shatiga ganacsiga caadiga ahaa oo kale zinadiyaa loo baneeyey marka ibaaxiyaa duniyadii ku batay muslimiintii dhexdoodana waxaa ku batay iraaqatu dimaa qof muslima oo qof kaloo muslima masaajid ku jira iska dilay oo dhiiggiisa bannaysanay oo daadinayo qof sujuud ku jira tooganay marka waxaasi meel la'aan ma dhacayaan qodxihii aan noo soo dhashay meel la'aan waxaasi ma dhacayaan qodxihii faraha badnaa oon tallaalanaynay waya karoona iyo wax ka badanna ilaaha naga hayay jala jalaaluhu wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfuu can kaiir wax badanoo weliba ilaahay noo saamaxay bifadlihi wajuudihi wa karamihi ayuu ilaahay noo saamaxay ilaahayna xigmadda uu ka leeyahay madrasatulibtilaa markuuna dhex gelinayo waa alrujuucu waalinaabatu ila allah waa inaan ilaahay inta sii baranno oon ilaahay sii jeclaanno oo ilaahay awooddiisa aan sii fahamno ilaahay aan u laabanno subxaanahu wa tacaala walanudiiqannahum min alcadaabi aladnaa duuna alcadaabi alakbari lacallahum yarjicuun ilahay wuxuu leeyahay aakhire intaan la gaarin cadaabkii weynaa ka sokay cadaab ka sokoo yaraannu u dhadhan siinaynaa lacallahum yarjicuun dahara alfasaadu fi lbari wاlbaxri bima kasabat aydi الnaas liyudiiqahum bacda aladii camiluu lacallahum yarjicuun marka madrasadan ulajeedada laga leeyahay alinaabatu warujuuc ila allah yacni wax ilaahay cabad iskagama samaynayo cayaar ilaahay subxaanahu watacaala musiibooyinka ilaahay ummadaha ugama rido laakiin xigmadda uu ka leeyahay waxaa weeye alrujuuc ila allah in ilaahay si fiican loo sii barto awooddiisii
gaaladii xataa hadda waxay su'aalo ay iska weydiinayaan oo cudurkani uu anshax iyo aadaab u yeelay gaaladii kuwii ugu waaweynaa corona oo anshax iyo aadaab u yeelay oo la kari weysnaa kibirka iyo isqaadqaadka iyo mashaakilka la kari weysnaa cudurkan indhuhu uusan qaban karin ayaa karbaashay oo anshax u yeelay markaasay hadda beejajka ugu horreeya ku soo qorayaan axaadiistii nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh nadaafadda iyo dahaarada iyo nabigu uga hadlay oo taraam hadda maaragtaa usbuuc hore uu iclaaminayey uu dhahayay war salaad ha la tukado uu dhahayay hadda salaadda asagu salaadda wax la tukado waa midii kaniisadda muslimiintuna wuxuu leeyahay salaadoodii ha dukadaan annaguna kaniisadahaanu aadaynaahu waa taraamoo salaad ku baaqaya shaydaanul akbar fircoonkii ummaddan fircoonkii caalamkan ugu weynaa ahaa ya salaad ku baaqaya intaasi marka waxaa weeye waa inta ilaahay uu ka rabo xikmatulibtila kibir jabisu bini aadamka dacfigiisa iyo tabardarradiisa iyo dhareerkiisa siduu uga daadanayo in la tuso miskiinnimada bini aadamka in la tuso wey marka insha allahu tacaala ducadana aanu badinno innaga weliba dad soomaaliya waxaan nahay dacfigeenu iska badan yahay dowlad xoog leh ma haysanno isbitaallo waaweyn oo dadka maaragta oksijiinka lagula xiro oo lagula tacaalo ma haysanno dadna garab qabanaya oo nala tacaalaya ma haysanno shacabku weliba maaragta waa dad garab ku noola oo intiida badan boqolkiiba 99 dadku waxay ku nool yihiin yacni quutulyoomkaa waxay ka soo dhacsadaan qof dugsi furanaya qof maaragtay jaamacad ay u furray qor iskuul maaragtaa ka shaqaynayay qof suuqaas ka xamaasha duruufahaasaa soomaalidu ay ku nooshahay boqolkiiba 99 qof kayd meel ay u yaallaan oo haddii maanta magaaladan bandow la soo saaro dhahaya war kaydkaygiiyaad ku baxsanaysaa waa boqolkiiba 1 soomaalida boqolkiiba 1 wey saasaa haddana waxaa la leeyahay bandow waa soo socda bandow waa soo socdaa la leeyahay oo dadkii oo sidaa duruufaha adag la tacaalayay ayaa la leeyahay haddana guryahoodii ha lagu soo celiyo waxa weeye marka waa ka dar un cudurkii karoona maahane ka badan karoona labaad ha la keeno ummaddii haddii guryaha lagu celiyo oo ummaddii qaraabkii loo diido oo ummaddii maaragtaa muruq ku noolka iska ahaa dhaqdhaqaaqii ay samaynayeen loo diido dee mowd ka roon ma jiro kan maaragtaa in loo dhimanayo allahu aclam laakiin gaajaaba ka daran gaaja ummaddu ay u dhammaanaysa midda kale gaajada qofka ummaddu haddaysan iimaan xoog le aysan ahayn gaajada waxaa ka dhalanaya akhlaaq xumo dadku hadday baahdaan iyagaa isdilaya waa isdhacayaan tuugadaa badanaysa akhlaaqdaa lumaysa amraad nafsiyaa dhalanaya qofka haddii guriga lagu xiro oo waxbarashadii loo diido oo xabsi maaragtaahay yacni iqaamada jabriyada waa qayb cuquubaadka ka mid a qawaaniinta waxaa ka mid a qofka marka la ciqaabayo iqaama jabriya qodob la yidhaha ka mid iqaama jabriya maxay tahay waa gurigaaga ha ka soo bixin waa xabsi qayb ka mid a marka dadkii in cuquubo lagu rido ma wanaagsana cuquubada dadka in lagu rido oo la yidhaha guryahoodii ha lagu hayo yaysan soo dhaafin dadka duruufahooda ha la qiimeeyo duruufaha dadka ay ku nool yihiin ha la qiimeeyo marka innagana ka mas-uuliye ahaan cid noo maqani ma jirto ilaa ilaahay mooye aanu badinno ducada wax imkaaniyaada oo waddankan yaalla ma jiraan oo lagula tacaali karo xanuunka wax imkaaniyaada oo ku filan maanta haddii maaragtaahay loo soo dhaco oo 10 kun loo soo daato ilaahay baan kama dhigo oo ilaahan ka magan galnay subxaanahu watacaala wax imkaaniyaada oo ku filan oo waddankan hadda uu haystaay ma jiraan laakiin masaajidda ha laga qunuudo shakhsi ha loo duceeyo qur-aanka aanu aqrinno yaasiimada aanu aqrinno ducada aanu badinno xadiis waxaa jiray tirmidi iyo imaam axmed uu warinayo oo nabigu salى اllahu عalيه wasalam uu yidhi laa yaruddu اlqadaa'a ila اdducaa wax qadaha iyo qadarta ilaahay ka hortegi kara ducadaa ka jirtuu yidhi nabigu salى اllahu عalيه wasalam ducada la ducaysanayo ayaa ka jirta marka aanu ducaysanno afraadan wa jamaacaadba aanu ilaahay barinno inuu ilaahay subxaanahu watacaala musiibadan uu naga kor yeelo hadda sidaasay tahay dunida innaga dadkii ugu tabarta yaraay annagoo ku jirna ayaan weli u roonnahay annagu dowladihii waaweynaayo imkaaniyaadka iyo muruqa iyo ku tashanayay waa soo baabi'iyey cudurkan corona waa soo baabi'iyey innagaasoo ducafo iska ah oo masaakiin iska ah ayaa ugu roonba cudurkan hadda markii la yidhaha inta yarna ilaahay ha naga dulqaado ilaahay ha naga dulqaado ilaahay ahalka iyo awlaadda iyo deriska iyo muslimiintoo dhan iyo waddanka soomaaliya allah nooga xifdiyo allah nooga ilaaliyo waxa yarkaahu la sheegayana allah naga dulqaado ilaahay subxaanahu watacaala dunuubteenna iyo macaasideenna iyo taqsiirka iyo gaboodfalkeenna weeye waxa nagu dhacayo wax badanna ilaahay waa noo saamaxaye inta yarna ilaahay ha naga dulqaado ilaahay naga xifdiyo intii u dhimatana ilaahay shahaado allah uga dhigo sala allahu wasalam wabaarak calaa sayidina maxamed wacala alihi asxaabati alkiraam ajmaciin ramadaanka markii laga baxo in sha allahu tacaala
wadac markuu dhammaado axadda ugu soo horreysa ayaan isku imaanaynaa haddaan naf intaa ku gaarno in sha allahu tacaala.